waliba qumanihiisa hadduu qoorta soo surayo yaa qaranka daafacaya qowmiyadda ilaalinaya warya qaranka daafacaya qowmiyadda ilaalinaya qiimihii xornimadeenna yaa kafaala qaadaya. ururka haweenka gobolka bari oo maalintii labaad oo xiriir shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo horumarka gobolka isla markaana waxa ay fariin u direen hogaankii hore ee ciidamada BSF kaas oo dhawaan xilka qaadis ku sameeyay madaxweynaha dawladda Puntland. kulankan ayaana waxa soo qaban qaabisay gudoomisada ururka haweenka gobolka bari Maryan Guduudo. barnaamijkan wuxuu daba joogaa shalay shir aanu qabanay waxaan kaga hadlaynaa saraakiisha qodobadii aanu shalay ka tagnay qodobadaas oo ah ilaahay idankiis shalay waxay noo joogtay inaanu la hadalno qolyihii ilaahay idanka ayaamaha kan waxay taagnaa khilaafaadkii inaanu ka hadalno haddii annagu hooyooyin baan nahayo markaan iyo mar kale iyo mar shanaadna waaba qabanaynaa shirarka ilaahay idankii ilaa intaanu ka helayno sidaanu doonaynay. waxaan awalhu la hadlayaa madaxweynaha Puntland mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani Dr. Saciid Cabdullaahi Dani waan ku salaanay halkaan waxaa jooga ururadaadii iyo dadkaagii ururka haweenka gobolka bari dalka adaa xukuma adaa madaxweyne ka ah ilaahay ka sukow amar baata dalka taladiisu aday ku saartay kaafisha kabarta sariirta saaran wiilka qoriga sita gabadha caawar dhalatay ilaahu waa ku cadaamay reer Puntland iyo ummadda ilaah keena iyo isugu timiba mas'uuliyadooda iyo xilkooda aduu ku saaray maamulka ilaahay ka sukow adaa iska leh mas'uuliyadaada madaxweyne dalka cid kugu haysataa ma jiro cid kugu qabsan kartaana ma jirto waxa doontaad bedeli kartaa waxa doontaad qori kartaa khilaafka hadeer yimi ayaamaha kan waxaanu jecel lahay waxsan in wax ku dhamaadaan annagu tanaasulku oran mayno madaxweyne dalka adaa afka yagana maaha ka noqo go'aankaagi oran mayno laakiin wax la yiri dalhayow durub waxaan la hadlayaa asad iyo maxamuud baagna xilka dad maxamuud baahaya asad baa uga weyn askari la bedelayo macna male hadda rag badan baa la bedelay waad ogtahay digreete madaxweyne ka soo baxday noqon mayso marka ilaahay idankiis maadheeno qaataxiyo kalgacalka leedin qabo. bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim annagu nabadgelyaanu rabnaa annagu nabadgelyaanu rabnaa annagu nabadgelyaanu rabnaa oo nabadgelyaanu doonaynaa oo dhinaca u taaganahay umulii baa soo baxay oo habrii baa soo baxay oo caruurii baa soo baxay oo qorrax baanu taaganahay oo waa maalintii labaad waxaanu idiin sheegaynaa inaana maqashaan asad iyo maxamuud baan la hadlaya eedooyin iyo ayeeyo waxaan rabnaa inaad talada dadka qaadataan oo talada dalka qaadataan waxa qabateen waa ognahay idinkama maqnin waa idinla joognaa inaad dalka qabateen waa ognahay inaad dadka qabateen waa ognahay inaad masaakiinta quudisaan waa ognahay inaad adduunka ubaxii dalka u tihiin waa ognahay wax walba waa ognahay marka waxaan rabnaa inaana maqashaan inaad dadka maqashaan oo mudaynayaasha maqashaan oo murwooyinka maqashaan oodna maqashaan baanu rabnaa haddii uu qabiil waliba qabiil kale hubka u qaato isqoonsiga dhexdina hadduu dhihi qulqulay keeno kaayagii qaloocnaadii aynu qaban weyno nin waliba qumanihiisa hadduu qoorta soo surayo yaa qaranka daafacaya qowmiyadda ilaalinaya warya qaranka daafacaya qowmiyadda ilaalinaya qiimihii xornimadeenna yaa kafaala qaadaya. Cabdirasaaq Axmed Saciid warbaahinta dawladda Puntland magaalada Boosaaso.